isu soo noqod wanaagsan oo khayr qaba aasiyay halkaad nagaga maqnayd 2 bilood iyo 7 laguma arag. Okay, update weeyaan maanta insha Allah videogani waan iswareysanaynaa si gaar ah ana idin waramaya halkaan idinkaga maqnaa insha Allah muddada. Welcome dhammaan soo dhawaada to ACS TV show. aad baan ugu faraxsanahay inaynu soo laabanay insha Allah kulligeen biidnillaahi ta'ala inuu khayr qabna. Okay guys, waxay isugu keen dambeysay December dhamaadkeedii. labadii maalmood ee u dambeysay meelaha ayaan soo dhigay videogii u dambeeyay. waxaanu ka hadlayay sanadka dhamaaday aragtidiisii iyo dareenkii aan ka qabay insha Allah. videogan markuu dhamaanayna xagga dambaan idin soo dhigaya dadka aan videoga daawanin insha Allah saad u daawataan. Tataaxigta waxa weeyaan 2 bilood iyo xogaagaan idinka maqnaa waxa inuu soo biiray ilaa qiyaas 1,200 oo qof meelaha oo aanan soo hor fadhiisanin sidan. So waxaan idinku leeyahay walaaladay welcome soo dhawaada waa ku faraxsanahay inaad nagu soo biirteen barasho wanaagsan insha Allah. intaan maqnaana videoyada aad baad u daawanayseen dadkiina cusub si gaara waa ku farxaytaana because daawashadii videoyadu meeshii kamay bixin aad baa loo daawanayay dadka cusub ayaa wixii hore oo dhan soo daawanayay. Okay, so welcome baan idinku leeyahay insha Allah channel biidnillah aad ka faa'iideysataan oo wax far badan insha Allah oo idin anfacaad kala baxdaan ayaan rajeynaya insha Allah inuu noqdo. Okay, muddadaan idinka maqnaa dadka kaliya ee aan xiriir toos lahayn aanu iska warhaynay waxay ahaayeen dadka ku soo biiray membershipkii ACS TV show. hoosta waad ka arkaysaan subscribe agteeda dhinacyadeeda ku taala meel ay ku qoran tahay join. waa rajeynaya insha Allah dad badan inay ku soo biiraan. dadka live baan u soo galay luuqa ah waa iswareysaneynay marmar hal qof baan live u soo galay yoo rabay just inaan iswareysano sheekaysano. Okay, marka guys aad buu fiican tahay taasi wax fara badan oo publica la soo dhigeen ayaa xaga insha Allah la soo dhigo oo laga wada faaloodo oo laga wada hadla si videoyo gaarana xitaa dadka waa u soo sameeyaa. marka dadkaana waqti ayaan u jaray soo iyagoo iska warhaynay haddana haday halkan iga maqlayaan. inta waxa xigta warbixinta waxaan ku maqnaa waxaan idin siinaya siday arrimuhu ii soo mareen yani musalsal taxane insha Allah idinkuma dheeraniyo biidnillaahi ta'ala. Okay, sanadkii markuu dhamaaday ee isugu keen dambeysay anigii 2 cisho sanadka u dambeeyay waxaan galay hawlo qorsheynta biidnillaahi ta'ala goolalkayga aan rabo insha Allah inaan wax ka qabto sanadka cusub. So gool baan sameystay kaba soo qaad goolka qiyaas ahaan waxaan rabay inaan insha Allah gaaro ilaa 3 sano kadib. haddaan hawshiisa sii bilaabayo qorsheyntiisa iyo sidaan u gaari lahaa talaabooyinka la iga baahan yahay inaan qabto. Okay, waxyaabaha noocaasa tusaale luuqad baabad barabtay inaad 3 sanadood ku baratidood kaga farxalatid talyaaniga oo kale de maanta waa inaad sii bilowdo inaad sii qaadato koorasyadaadii maalinba in yar sii barato si 3 sano kadib aad u dhamaystirto hadafkii. waa noocyada hadafyadu hadaf baa la samaystaa muddadaad rabto inaad ku gaadho iyo wax qabadka loo baahan maalin kasta inaad in yar sii qabato ee ku wadaya xagga hadafkaaga inaad ka guul gaadho insha Allah. soo qorshayaashaasaan dhisayay waxaan samaystay sanadka cusub vision boardkaygii xalqad u gaarana vision boardka waa soo wada insha Allah si degdeg ah dhaqso bishan intaanay dhamaanin vision boardkayga aniga kayga idin tusi maayo because waa personal hadafyadaan rabo inaan gaadho insha Allah 2 sanadood ee soo socda si gaar ah sanadkan soo socda ayaan qorsheeyay oo sawiro oo waxaan ku gidaarka igu dhigsan qolkayga insha Allah ii gaarka ee guriga gudihiisa. taana waa dejinayay si gaar ah naftaydan gaar u la baxay waa isira wareysanayay waa isira nasinayay because waan soo daalay shaqadii fara badnayd sanadkii dhamaadayna aad baan u soo daalay waqti waxaan rabay anigoo fresh oo daalkii iska yara reebay inaan bilaabo hawlaha sanadka cusub. soo marxaladda kala wareega 2 sanadood iyo hawlahooda kala duwan ayaan
horta iskaga mashquul ahaa wiigii u horreeyey sanadka cusub. And then waxa aan aad culayska u saaray, waan idiin sheegay guys, business online ayaan leeyahay oo gaara oo cusub. So kaasaan waqti fara badan u jaray January oo aan aad hawshiisa uga shaqaynayay. taasina waxay keentay inaanan waqti badan u helin xagga YouTube-kii. So taasina waqti bay iga qaadatay, laakiin focuskayga ayaa wuxuu ahaa Asiyay January wixii ka qabya businesska isu dhamaystir si uu insha Allah u dhaqaaqo. Okay, waayahay taasina qorshayaashii aan idinkaga maqnaabay ku jirtay. iyadoo saa tahay oo guys nolosha uun kala gurayo, nolosha uun baa la kala guraya, wixii horumara, wixii isbedela, wixii la iska reebayo aan fiicnayn, wixii waji cusub loo samaynayo, mowduucyada anigoo iskaga jira. bishii koowaad ayaa bishii labaad waxaan ugu dhacday geeri. Okay, aabahay oo in badan xanuunsanayay ayaa naga geeriyooday bishii labaad. ilaahay samriyo iimaan ha naga siiyo, saadiqa insha Allah. dhimashadu horta waa xaq, cidina ma diidi karayso. noloshuna gebigeedu waxa weeyaan waa dhalasho iyo dhimasho, dhalasho iyo dhimasho iyo kala wareeg. inta u dhaxaysa dhalashada iyo dhimashada inta u dhaxaysaana waa imtixaan, waa imtixaan. aniguna horta markaygii horeba waxaan lahaa dadka iimaankoodu aad halka uga sareeyo, walilaahi alxamd, because aad baan u xiisayn jiray diraasadda maa bacda almowt, caalam albarzakha, qabriga, waxa bini aadanka sugaya, marxaladan adduunyada ku xigta. muddo badan baan darsi jiray oo aad u xiisayn jiray. taasina waxay ii dhashay aniga iimaankayga kor u kaca oo halkaa aad uga adkaada. waxaan faa'iido kaloo aan diraasadaha aan sanadaha hore aad u xiisayn jiray waxay ahayd cashir weyn oo markasta aniga noloshayda dhayliga every single day aan noolahay door ka ciyaarta. sidee door uga ciyaarta? waxay uga ciyaarta inaan anigii i wanaajiso oo markastaan xasuusnaado dhimashadii. Okay, waa ta keenta inaan markasta xisaabtamo, waa ta keenta markasta waqtigayga inaan qiimeeyo oo aanan waqtigayga iskaga ciyaarin, because waqtigayga haddaan ku ciyaaro oo aanan ku ciyaaraya waqtigayga iyo malaayacni ku jira, haddii naftu iga baxdo maxaa faa'iiday? Okay, adduunyada intaan joogo waa waqti cayiman. anigu miyaan garanaya intuu yahay? maya. So aniga waqtigaa ilaahay isiiye uu yidhaha si adduunyada intaasaa joogaysa, waxaan rabaa inaan wax faa'iido la gashado, waxaan rabaa inaan wax farxad la gashado, waxaan rabaa wax inaan gashado dadka anfaca, waxaan rabaa inaan gashado wax aan hadhowtana ilaahay la hortegi karayo. Okay, oo aakhirana aan u qaadan karayo camalka fiican ee adduunyada. So guys, waxyaabaha tarbiyadda naftaada lagu tarbiyadeeyo ayay ka mid tahay markasta inaad xasuusnaato dhimashada. haddaad markasta xasuusnaato dhimashada aad baad u xisaabtamaysaa. waxaad ka xisaabtamaysaa qofka waxba ha odhanin, bilaa adigoo khaatumadaadiba noqotay adoo qofkaa xumaynaya, bilaa khaatumadaadiba aad ku dhimatay adoo qofkan xaasidaya, adoo qofkan wax u dhimaya, adoo qofkan lugtahaya, adoo qofkan farxaddiisa ka dagaalamaya, adoo qofkan waxaan mid kale oo aad u muhiima oo dhimashada casharadan ka faa'iiday markasta niyaddeedu xasuusnaato waxa weeyaan imika intaynu adduunyada joogno haddaynu nahay mayd soconaya guys, haddaynu nahay mayd soconaya. marka ay naftu ka baxdo qofka markaasuu noolaaday. wataa nolosha runta ahi. tani waxa weeyaan waa been, waa iska khayaali, waa marxalad yaro, waa sida bridge-ka oo kale. halkan aad ka soo galaysa markaad dhalato bridge-kaas waa intaad adduunyada joogtaad bridge-kaas ku dul soconaysa. markaad dhimatona albaabkan kale aad ka baxaysa, noloshii runta ahayd ayaad gelaysa. waad garateen? marka haddaa leeyahay mayd soconaya, haddana hadduu dembigii dadku fara badan yahay. marka I hope insha Allah intaa yar aan idinla wadaagana inay dad fara badan ku baraarugaan
okay oo markasta niyadooda xasuusiyaan dhimashada waayo taas way ku wanaajinaysaa adaa mar kasta noqonayo qof wanaagsan okay qof wanaagsan oo aan waqtigiisa ku ciyaarin oo aan dadka ku ciyaarin oo naftiisa ku ciyaarin oo waxba iska xumaynin ayaad noqonaysaa okay marka guys waxaan ku iri taasna bishii labaad ayayna haysatay sanadka alxamdulilah rabbil caalamiin على كل حال أيا الأورانية إلهي وحو كأنه برالي وإن لغا نقضه وإن لغو صبره دعادنا لبضيو 10 نقطة إن شاء الله قفك إساقي نفتيسي مركزت إن شاء الله الدنيا دي إنت كهردي واسكسي براروشي مربا بإذن الله تعالى مركز تاسنا تاسعيد وليبا مالين لبا عشو كهر أبو إنتيانو غيريونين مالنتو غيريدين لبا عشو كسيهر waxay ahayd dhalashadii inantayda soo halkan waxaan anagu ku jirnaa dabaaldegii iyo farxadii dhalashadeeda ayaa maalintii ku xigtayna haddana geeri baa timi adduunyaduna waa sidaa walaalayaal alxamdulilah waa in la yidhaahdo alxamdulilah calaa kulli xaal insha allah walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim okay yowma tarawna almalaa'ika qur-aanku ilaahay ku sheegay maalinta malaa'igta aynu aragno ويان مالنتينو نولاشي runta ahayd gallo maalintaynu noolaano waa maalinta marka malakal mawt kala arko okay marka guys insha Allah xitaa marxaladaha adag nolosha waxa laga baxa walaalayaal 10 baa laga baxa adigu insha Allah ku anfaca adduunyada biidni Allah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin bishii saddexaad baa inoo soo gashay so bishii saddexaad maanta waxa laga jira maalin lixaadeedii durba 7 baa tagay marka adigu imika waxaan dad badan oo ila soo hadleena asxaabta Aasiya soo noqo way yara adkaatay inaad iska soo kiciso waxa soo dhan oo aad energy iyo tamartii soo celiso haddana hawshii adduunyadana sii wadid laakiin wallahi waan dadaalay maanta insha Allah waxaan rajaynayaa biidni Allah ta'ala idinkuna xaqiina inaad aad ii dhiirigelisaan aadna ila shaqaysaan oo ila dadaashaan si anigina insha Allah aan u helo energy iyo tamar idinkaan idinka shidaal qaata okay idinkaan idinka shidaal qaata marka insha Allah idinkii xiriirkiini ha fiicnaado dadaal xaqiini comment-yadii maan eegin 2 bilood in yar waan eegay maalin dhaweyd laakiin comment-yadii waa isku biireen waxaan ka soo jawaabi karo may noqoneen WhatsApp-kii sidaas oo kale Facebook luuqiisii sidaas oo kale adduunyada waxaan ku ma sha Allah tabarakallah fariimuhu waxaan ku buura waa igu farabatay laakiin waa dadaali insha Allah waxaan soo daba qaban karayna soo daba qabto biidni Allah ta'ala hadii ilaahay ka dhigo so asi waxa idin kaga maqnay xalka adduunyo waa saa up and down ka weeyaan laakiin waana la jaan qaado una la socoto oo adiga laftigaagu safar baad ku jirtaaye mid kasta maalinta up tahayna faa'iido kala bax maalinta down tahayna faa'iido okay kullu waa 10 ugu dambeeyna qofku markuu dhinto guys naftiina xasuusiya qofkii naftii may dhimanin ilaahay subhanahu wa ta'ala waa waxyaabaha iimaankaygu aad iyadana ugu fiican yahay waxa weeyaan taas waan xasuustay markasta ilaahay subhanahu wa ta'ala maalintu nafta abuuray ugu horeyn kun fayakun markii wax kasta laga abuuray ilaahay nafta abuuray ilaahay nafta wuxuu ugu talagalay inay noqoto wax nool oo aan abad intii ila maalintii la abuuray ila abadan dhimanayn ilaahay nafta ugu talagalin inay dhimato wuxuu abuuray naf aan dhimanayno weligeed dhamaanayn taa dadka aan fahamsanin hadaan u jirciyo naftu marba caalam noocay maraysa safar bay ku jirta marba meel bay maraysa waa fahamteen marba caalamkay joogto marba adduunkay joogto dharkiisun bay xirataa dharkuna waa maxay waa jirkan aynu ku jirno waa fahamteen marba adduunkay joogto dharkiisun bay xiranaysa nafti way ka dhex baxaysaa waa sida imika anigu haddaan qolkayga tago oon dharkan iska bedelo oon dhar kala xidho waa sida jirkii qofku waa nool yahay dharkii un baan siibay dharku waa jirkan marka adduunyada waxaynu ku jirnaa oo aynu gashanay dharkan aad arkaysaan ee damqanaya ee saxaroonaya kaajaya xanuunsanaya ee gaboobaya
waa dharkii adduunyada. marka caalamkan qofka la yiraahdo waad ka tagaysaa kii ku xigay baad tagaysaa. dharkan intuu ka dhex baxdo naftu ka dhex siibato ayaa waxay gashanaysaa dharkii caalam albarzakh. caalam albarzakh dharkiisu siduu u eegaya ma garanayno, laakiin de waa jir kale iyo aragti kale oo caalamka naasibaysa, caalamka la jaan qaadi karta. way jirkeenani lama jaan qaadi karo caalamka. waa fahamteen? haye hadhow yawm alqiyaama jiro waxaan ku ori qubuurta marka caalam albarzakh marka lagu jiro waa gaar. caalam albarzakh marka la iska soo saareen qubuurta la iska soo guro dadkoo dhan ka soo baxaan xisaabtii iyo qiyaamihii la tagayana caalamka dambe haddana ayay qaadanaysa dharkiisii iyo wixii ilaahay ugu talagalay inay kaga baxdo. hadhow maxaa xiga? jannada iyo naar soo maaha. jannaduna wuxuu leeyahay araggiisa u gaarka ah, naartu waxay leedahay araggi. waa isla naftii unba safarada ku jirto, marba caalamkay tagto xidhanaysa jirkiisii, marba caalamkay tagto jirkiisii xidhanaysa. marka gaystaana aad baan u xasuustaa marka qofku markuu dhinto adigii unbaa indhahaagii laga qariyay, dee nafti waa nooshahay, way jirtaa, adduun kale ayay joogta iminka. okay, waadoo gurigan ka guuray oo guri kale u guuray, oo lagu yidhi qofkaa gurigaas u guuray is arki maysa, ama magaaladan ka guuro magaalo kale u guuray. markaa gays niyadiina markasta xasuusiya dhimashada waxay tahay caalamada la marayo, safarka dheer. saad shantada safarkaaga ugu sii guratid waxaad kaga bixi lahayd adduunkaas oo dhan oo ah khayr badan. okay, shantadiina safar ka sii buuxsada, iminkaad haysataan chance iminka sii buuxsada insha allah. okay, markaa guys insha allah saasan anigu u eega, saas aragtideeda waa taa. walilaahi alxamd. ilaahay kulligan iimaanka insha allah haynoo hagaajiyo, kor haynoogu qaado, haynoo adkayo biidni illaahi tacaala. videogan intaasan insha allah ku joojinaya. video kale ayaan hadda idiin duubaya, kan dabada ugu qabanaya anoo isla dharkan xidhan, kas waqti ma hayaan soo badbadasho mowduuc kale oo muhiima insha allah ayaan idiin soo gudbinaya. rabadaanna way inoo soo socotaa, 12 cishaa ka hadhay. okay, rabadaan oo dhanna bisha rabadaanna waxaan jeclahay maan go'aansan, waxaan jeclahay bishaan inaan fasax qaato, cibaadadeeda u qaato. midda kale rabadaan 30 jis oo quraankan khatima, waqti badan bay taasi iga qaadata, hawlihii kaloo dhan ee rabadaan, shaqooyinkii wixii oo dhan. marka waxaa rabay rabadaan inaan kasii hordhaco, oo imika inta rabadaan ka hadhay 12 cisho ayaan jeclahay, waasaan jeclahay ilaahay ay la qabtee inaan maalin kasta xabad video aduubo, laakiin isugu dabaqabadu ma soo deynayo. duubistaan kasii hordhici lahaa, hadhow wiigii xabad video ama 2 video ayaan idiin soo dejin lahaa. okay, anuu hore usii duubay, waanaan jeclahay 2 bilood ay dhaafay videoyadoodii inaan soo daba qabto. hadday u yartahay 8 video inaan soo daba qabto oon xisaabtii ka dhigayo wiigii calaa video. markaa tii iga tagtayna waxaan rabaa inaan wax soo daba qabto bisha rabadaan inteediina waxaan rabaa inaan kasii hordhaco. marka hawshu iguma yaraa walaalayaal, iyadoo hawshii kaloo dhanna igu badan tahay. soo taageera videoyada, video kasta walaalayaal like-ta saara. like-tu waa muhiim. like-tu maxay faa'iida? videogiibay youtube-ka dhexdiisii socodsiinsaa, dadkii u geynaysaa. like-ta haddaan idin saarin walaalay videogu iska fadhiisanaya ma dhaqaaqayo. marka idinkaa gacanta ku haya videogii inuu dhaqaaqo, dadka u tago socdo. okay, video kasta like-ta saara, video kasta share-ta ku dhufto, facebookyada geeya insha allah. commentna soo qora, dhiirigelina biidni illaahi tacaala. iskay barana dadka cusub, soo dhawaadaan idin leeyahay mar kale insha allah. waan idin xasuusinaya kusoo biira membershipku, aad buu u fiican yahay guys insha allah. wax fara badan baynu insha allah isku soo kordhin karayna halka, sifooyin private oo aad u tayo fiican insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.